بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastoo aad joogtaan daawadayaal idilkiinba meel kasto iyo xilli kasto idin tahay waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dabcan waa barnaamijyadeennii taxanaha ee aad kala socoteen Airo TV oo inta badan idinka qabtirta waxyaabaha ku taxalluqa dagalka Soomaaliyeed ama guud ahaan carreeda iyo dadka ku nool. barnaamijka maanta aynu doonayno in aynu idin soo tabino waa barnaamijkan ugu magac darnay waa iyo Oodanabe Gaala Oromo qaybtii labaad. sida aad la socoteen Airo TV waxaad horay uga daawateen qaybo fara badan oo ku taxalluqa arrimahaasi aynu ka hadlaynay. haddaba meel kasto iyo meel kasto ama xilli kasto idin tahay waxaan idin leenahay mar kale ku soo dhawaado Airo TV oo goor walba u diyaara in ay bulshada Soomaaliyeed u hoga tusaaleyso tusana wadiiqooyinka dhabta ahaa ee ay ka halowday goor hore. marka hore inta aanan barnaamijkayga bilaabin waxaan ku daafuri doonaa afeef waxa igu xigaysa aaraar dabadna waxaan ku xujin doonaa barnaamijkayga buddigiisa ama gundhiga barnaamijkayga hadduu ilaahay yiraahdo. daawadayaal afeefteedu waxay noqon doontaa dabcan dad waxaa jiro aan horey ugu magac daray dadka loo yaqaano faalla quutayaasha oo inta badan commentiska ama amuuraha yacni dadka hadaladooda turxaan bixiya ama ka daba qaata inaan dadkaasi lagu kadsoomin. dadkaasi waxay u badan yihiin dad inta badan lagu soo dhex tuuraysan goor walba carrabaabo kana faa'iideysta marxaladaha iyo xaaladaha aloosan markaasi. aaraartayda barnaamijka waxay iyaduna noqon doontaa hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijyada ka baxo Airo TV ee ku taxalluqo dhaqaalaha, siyaasadda, dagalka, arrimaha ku salaysan taariikhaha intaba waxa ay bilayaan oo ay sare u qaadayaan arrimo hore looga alduufay oo ahayd in goor hore la ogaado. waxa kale oo ay barnaamijyadeena inta badan ka fog yihiin cunfiga ama qabyaalada ku aroora bulshada Soomaaliyeed ee inta badan la doonayo in lagu kala qaybiyo ama lagu kala xayndaabo. waxa kale oo aan barnaamijyadeena aan ka marnayn in laga hortago dhibaatooyinka ama isku dirka loo geysanayo qoomiyadaha daris wadaagta ah ee ku dhaqan geeska Afrika. marka barnaamijkeenaasi ayaan halkaa kasii wadi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. intaa kadib waxaan u gudageli doonaa gundhiga barnaamijkayga aan ugu magac daray waa iyo Oodanabe Oromo Gaalo qaybtii labaad. qaybtii hore waxaynu kaga hadalnay dagalka ama deegaanka qoomiyadda Oromo siday u kala baxaan iyo arrimo fara badan ku soo celin maayo. maanta waxaynu doonaynaa inaynu ka hadalno 3 qodob oo kala ah. 1 dadka loo yaqaano dadka ku hadla afka Oromada horta waa iyo 2 Soomaalida ku hadasha afka Oromada iyaduna cidda ay tahay iyo halkay degan yihiin iyo sababta ku qasabtay inay ku hadlaan afkaasi. barnaamijka waxaa kaloo aan ka marnayn oo aan ka hadli doonaa iyaguna baaq aan u jeedinayno da'yarta Soomaaliyeed ee qurbajoog iyo qolqolbajoog leh oo inta badan la caadaystay in ay ku lagu marar habaabiya ama inta badan la doonayo in madaxa loo geliyo bulshooyin aysan dad iyo deegaan ahaanba isu soo gaadhin. intaa kadib dadka loo yaqaano Oromo speakerska ayaan ka bilaabi doonaa barnaamijkeena si aan barnaamijka ugu soo koobno. dadkaasi marka laga hadlayo taariikhiyan marka laga hadlayo ama dad ahaan waxaa la isku jamciyaa dadka ku dhaqan gobolka laga soo bilaabo Tana River la yiraahdo oo qayb ka ah gobolka waqooyi bari ee Kenya maanta loo yaqaano oo ah dhul Soomaaliyeed. dadka halka laga soo bilaabo oo loo yaqaano sida dadka la yiraahdo Gabraha qayb ka mid ah Booranta oo halka iyaduna degan ilaa iyo Booran waxay degan tahay gudaha Ethiopia. dadka loo yaqaano Burjiga, dadka la yiraahdo Gujida, dadkaasi waa dadka la yiraahdo waxay ku hadlaan afka Oromada. saan hore u sheegnay dadka Oromada loo yaqaano ama magaca Oromo wuxuu soo caanbaxay 1800 gabagabadeedii waxaana magac ahaan ama martabad ahaan laga soo qaatay qabiilka loo yaqaano Orma oo yaala gobolka hadda aan sheegnay ee Tana River oo ah deegaano ay ku bohoobeen ama ay degan yihiin qabaa'ilada kala ah sida Boni, qabiilka la yiraahdo Warday Cali, qabiilka la yiraahdo Cabdalle oo ogaadeen ah, qabiilka la yiraahdo Bokomo, qabiilka la yiraahdo Taita, qabiilka la yiraahdo Awer, qabiilka la yiraahdo Riibi Case iyo Riibi Madoobe. dadka halka yaalo oo dhan iyagu mar gooni ayaynu ka sheekayn doonaa laakiin waa halkaas laga soo bilaabo ilaa gudaha Ethiopia laga keenayo. Oromo speakers marka dadka loo yaqaan ama taariikhda lagu qoray ama
dalka Kenya dadka iskuulada lagu baro ee Kenya gudaheeda ku nool horta waa inta Kenya ku nool waa Burji iyo Gabre iyo Boran weeyaan inta gudahaas ku nool. gudaha Ethiopia waxaa ku nool Gabre qayb ka mid ah iyo Gujida oo qayb ah ayaa iyadana ku nool. haddaan markaa intaa ka sii baxo oromadu sidaan hore hadda ka hor u sheegay bulshadaasi ama qowmiyadaasi waa qowmiyadda marka Soomaalida laga yimaado labaad ee dulmanayaasha ka ah federaalka Ethiopia waxa la yiraahdo ama magaca Ethiopia maanta waxa loo yaqaan. barnaamijkeena wuxuu ku salaysan yahay in dadka u ifino dhibaatooyinka iyo diihaalka iyo isku dirka laga dhaxwado qowmiyadahaasi dhulka yaala ayuu barnaamijkeena ifinayaa iyo dadka Soomaaliyeed ee la doonayo in isirkooda la faquuqo ama isirkooda laga weeciyo ama laga hinjiyo halkii uu Ilaahay ku beeray ayuu barnaamijkeena xoogiisa ku qotomaa. markaan ka imaado dadka qowdadyoogaasi kushaytiga ah ee afka Oromada ku wada hadla dadka Soomaaliyeed ee afka Oromada ku hadlo waa ayo maxaana u sabab ah in ay afkaasi ku hadlaan. qodobka ugu horeeya ee barnaamijkayga wuxuu ahaa jaraanjarta dhaqanka iyo nidaamka xeerbeegti ee oodan nabe laakiin qodobka dib ayaan u dhigay sababtoo ah qodobkan ayaa muhiim inoo maanta inaynu ka wabaxno. dadka Soomaaliyeed ee ku hadla afka Oromada iyo sababta waxa ku sababay ayaanu horta marka hore ka hadlaynaa. maxaa u sabab ahaa dad qof Soomaaliya inuu ku hadlo af Oromo sida inuu loo soconno laga soo bilaabo 1300 gabagabadeedii jabkii Imaam Axmed Gurey Garaad Ibrahim Garaad Geysale wixii ka dambeeyay iyo geeridii Amiir Nuur ilaa Amiir Maxamed ilaa Amiir Cali ilaa Sultan Maxamed laga soo gaaro dadka Soomaaliyeed waxay la taahayeen oo la dala dhacayeen diihaal fara badan oo kaga yimid dagaaladii faraha badnaa ee ay la galeen Abisiiniyiinta. dadka Soomaaliyeed ee ku noolaa markaa xadka Axmaarada iyo Soomaalida ee Addis Ababa 300 oo kiiloomitir waqooyi ka jiray waxa ay naawilayeen oo ay sugayeen mar walba inay helaan gacan ay ku tiirsadaan oo Soomaaliyeed oo kaga timaada afarta jiho oo markaa dadka Soomaalida ay awood ku ahaayeen xooga iyo saldanada ka talisa geeska Afrika. dadkaasi waxay galbe heer joogaan noloshooda waxay soo gaadhay in Addis Ababa la soo gaarsiiyay markii saldanadii reer Bani Maqsuum ee meesha ka baxday ee hore aan naga sheekeynay Umar Williams ma ama ninkii loo oran jiray Umar Dunya Xus ninkii loo oran jiray markii meesha ka baxday. dadkaasi markii Addis Ababa iyo nawaaxigeeda haadamo iyo dhulka la keenay waxaa ku dhacay haddana dagaalo kale oo hor leh oo lagu baacsanayo. dagaaladaasi waxay sababeen qarniyo inay haddana dadkaasi barakicin iyo diihaal iyo dhibaato iyo xoolahooga oo la mooruduugo haddana in la sugu daro. lagama harin haadamo marka la soo dhaafiyay ee haddana Awaas la soo dhaafiyay ee Casaba Tafarre iyo Hirna la soo dhaafiyay lagama harin dadkaasi dagaalka si joogto ugu socday. soodimaha dagaal markaasi waxaa soo galay qowmiyadda Oromo oo marka hore ka maqnayd dagaalka ka dhaxeeya Soomaali iyo Tigray oo gooni ah iyo Soomaali iyo Axmaara oo gooni ah. soodimaha cusub waxay sababeen iskaba raacin dadkii Soomaaliyeed ee ku jilcay dagaaladii boqolaalka sano socday ee Abisiiniyiinta ay la galeen. dabadeedna waxaa dhacday waxay xilli u dhiibo qarnimo wuxuu qarni u dhiibo gaajo iyo diihaal wuxuu diihaalba u dhiibo gawadful iyo tacaddi wax dadkaas loo geysto heer marka dambe waxay gaareen in laga minguuriyo noloshoodii iyo dadka ay ahaayeen. dadkaasi aan sheegayo ee dhulka intaa leeyo ku nool waxaa lagu qasbay inay dhulkooga ka baxaan waxaa lagu qasbay inay xoolahooga wareejiyaan dumarkooga la kufsado carruurtooda la dabxo. taladu marka adaa ku nool iyada kuguma noolo qarniyo dadka xaaladda ku sugnaa waan u iman doonaa dadkay yihiin dadka aan ka hadlayo dadka xaaladda ku sugnaa waxay qasab ku noqonaysaa inay raadiyaan waxa loo yaqaan isbadbaadin nololeed. dadkaasi waxay raadsadeen marka waxa loo yaqaano arrimaha soo socdo oo aan ka hadli doono. waxay raadsadeen gabaad meel ay gabaad ka dhigtaan iyaga iyo dadkii iyo xoolahoogii ay ku noolaadaan ayay raadsadeen. gabaad marka haddii noqoto inaad meel ka dhigato dadka markaa dad ahaan kugu sokeeyo waa dadkii Oromo ee markaa deegaanka yaalay ee ku soo fidayay
dhulka maanta ee gobolka oromada oo xooggiisa uu degan yahay ee kelinka afaraad la yidhaahdo dadkaas oromada oo kasoo fiday deegaanka koonfurta baali maanta loo yaqaano oo qayb ka ah isla gobolka oromada maanta fidkaasi iyo jabkii dadkii soomaaliyeed ee abasiniyiinta ay ragaadiyeen oo ay jilciyeen oo ay firxadkoodii ayaa kulmay kulankaasi wuxuu noqon marka inay gabaad raadsadaan dadka soomaaliyeed si ay oga sii mid noqdaan dadyooga ku nool geeska afrika gaar ahaan dhulka maanta etoobiya loo yaqaan gabaad oromo ayay dadkii raadsadeen waxay raadsadeen wehel ayay haddana raadsadeen waxaa wehel u noqon kara dadka markaa hadday ishayaanba haddana ay waxyaabo kala wadaagi karaan oo dadkaasi ay oga sokeeyaan abasiniyiinta weerarka kasoo qaada dhulalka loo yaqaano gojaam iyo gondar iyo lalbeelle iyo aksum mar hadday dadkaasi gabaad raadsadeen oo qowmiyaddii oromo qayb ka mid a gabaad ka dhigteen oo haddana ay wehel qayb ka dhigteen dadkii oromada oo meesha kusoo filay xaaladoodu waxay isu bedeshay wiirsi in lagu wiirsado qofka marka uu geysi yahay ama haliye yahay oo uu talinayay marka ay talada ka hoos baxdo oo uu qaran ahaan u jabo ama qabiil ahaan u jabo ama deegaan ahaan u jabo waxaa ku dhaca waxa loo yaqaano wiirsi wiirsigu waa digasho ama waa jees dadkii soomaaliyeed way adkaysteen calooshay xidheen saldanadoodii way waayeen hogaamiyaashoodii way waayeen dadkii xeerbeegtida ah way waayeen haddana waxay ka doorbideen inay magaca iyo martabadda ilaaliyaan iyagoo la jaal noqday qowmiyadda oromo dadyooga markaasi la jaalka noqday qowmiyadda oromo waxay wadaagayeen waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqan wadaag guur wadaag nolol wadaag iyo inay isdhaafsadaan ganacsiga markaasi darandooriga ahaa oo u badnaa dalaga beeraha iyo xoolaha la isweydaarsado dad badan oo soomaaliyeed ma ogo talada iyo arrinka labada qowmiyeed soo dhex maray laakiin mar waliba dadkaasi waxay inta badan xoogga saaraan utunta iyo xasaradda iyo irdhada ka dhexayso labada qowmiyadood laakiin waxa wanaagga oo soo dhex maray oo ay soomaali oromo u qabatay ama oromo soomaali u qabatay dadku inta badan kama hadlaan laakiin waxay xoqaan boogaha la dhayayo ee dadkaasi ay kasoo doogayaan ayaa la xoqaa mar walba dhalinyarteennana waa lagu soo dhex tuuraa dabadeedna iyaga social mediaha geliya oo mar walba aad moodid inay wax ku helayaan iyagoo ka hadlaya waxyaabo aysan garanin asalkooga ama halkay ka yimaadeen ama waxa bicin ahaan ay ugu fadhido dadkaasi soomaaliyeed waayahaasi boqolaalka sano ah ee dhibaatadaasi ay abasiniyiinta ku hayeen ee dilka iyo barakaca iyo boobka iyo kursiga ah haddana waxay door bideen inay gagsadaan oo ilaaliyaan nabadda ay dadkaa kula nool yihiin iyagoo weliba mar walba rogaal celin ku samaynayay dadkii abasiniyiinta ahaa oo markaasa dib isu abaabulayay oo mana aysan arki jirin dadka oromada inay ku yihiin cadow dadka soomaaliyeed laakiin cadowgoogu wuxuu ahaa ilaa maalinka maanta ana yahay waa abasiniyiinta damacsan inay geeska ka tiraan dirka ilmo soomaale iyo dadka kooshiyiinta bari laisku yidhaahdo dadyoogaasi marka aan soo habo oo maanta dad badan ay social mediaha ay ka hadlayaan oo leeyihiin dadkaasi waa reer hebel dadkaas innagana ma ahan dadka waa sidaa ay leeyihiin aan ka imaado haddaba aan soo horo qabaa'ilada soomaaliyeed ee qiimaha badan leh ee dhibaatada loo geystay inta aanan soo horin magacdooda ma waxaa habboon dadkaasi dhibaatada loo geystay ee intaa meesha yaallay ee sidaa loo dilayey ee wixii doona laga yeelayay inaynu ku wiirsano ama ku digano mise waxaa habboon inaynu gacan iyo walaalnimo u fidino oo aynu dadkaas soomaaliyeed ee gacan la-aanta noqday ee wehel la-aanta noqday ee qasab ku noqotay inay waayahooga ay la wadaagaan dadyo kale inaynu soo dhaweyno oo aynu lidmada ka masaxno mise waxay tahay inaynu ku wiirsano oo aynu ku digano oo aynu soomaalinimadooda dafirno caqliga iyo garashada dhabta waxay inoo sheegaysaa inaan dadkaasi waa soomaalinimadooda iyo isirkooda aan la dafirin ama aan la dheegin ee laakiin loo soo dhaweeyo inay yihiin dad soomaaliyeed oo waayuhu uu rogtay ama waayuhu uu ka adkaaday dadjoogaasi markaa waxay isugu jiraan qabaa'ilada waaweyn ee soomaaliyeed ee la yidhahdo dir iyo daarood iyo hawiye intaasiba oo maanta qayb ka ah dadka afka oromada ku hadlo qaybo ka mid ah ayaa afka oromada ku hadla qaybo dhanna waxayba ku hadlaanba afkaasi marka xusuusin hadduu qofku ku hadlo qofku ku dhashay kajiada ama ku dhashay nakuru iyo kisumu ee soomaaliyeed ee sawaaxiliga ku hadlay ama soomaaliga ku hadal ma waxaa la odhanayaa soomaali ma aha caqliga saliimka wuxuu noo sheegayaa waa maya
qofka ku dhasha baxardaar iyo gondar iyo goojam ee weligii soomaali arag soomaaliyana tegin af soomaalina aqoon asalkiisina uu soomaali yahay ma waxaanu ka qaadi karnaa asalnimadiisii miyaan asal doorin karnaa oo waxaan oran karnaa soomaali ma ahan sababtoo ah af soomaali kuma hadlo waxyaabahaasi waxyaabaha uu cadowgu ka faa'iidaysto oo cadowgu inagu soo dhex tuuray ee la doonayay inaan inagu ku mashquulno aan intaa ka gudbo maadaama ay dadkaasi soomaaliyeed ay saas ugu qasabtay inay ku hadlaan marka afka oromada ay jaal noqdaan dadka ilaa maalinka maanta aan nool haddaad waraysato odayaasha iyo dadka waayo aragga ah dadyoogaas soomaaliyeed ee meel fog badan aadeen jigjiga iyo diridhabo iyo harar iyo maxaa la yihahdaa hawaday iyo mataa hare iyo ku nool waalidiintu carruurtoodu afka oromada inay ku hadlaan way ogolaayeen laakiin waxay diidanaayeen oy nacbaayeen ilmahooga inay af axmaari ku hadlaan nacaybshaha loo qabo xabashida iyo dadka abasiniinta haddaba dadyoogaasi aan soo horo cidday yihiin ku hadasha soomaaliyeed ee ku hadla afka oromada qayb ka mid ah qaarna ayba ku hadlaanba afkaasi uu yahay afka koowaad ama labaadba kow qabaa'iladaas waxaa ka mid ah kuwan soo socda qabiilka la yihahda garre qabiilka loo yaqaano gurre beediisle gariire duubo gurguro akishe qaldho karanle barkii gugundhabe barkii sida beesha loo yaqaano jibaado iyo qaybihii hadda ka hor aan ka sheekeynay ee sida mataqaanaa qulubi iyo beelahaasi oo kale beesha gadabursi qaybo dhan oo ka mid ah ayaa ku hadasha afka oromada beesha loo yaqaano tuurcase ee ka mid ah beeshan bartire qaybo dhan ayaa ku hadla afka oromada qaybta reerka loo yaqaano gelmays oo ah afarta absame adeerkood jidwaaq absame ogaadeen absame baalacda absame weyteyn absame adeerkooda ah gelmays boqolkiiba 80 wuxuu ku jiraa qowmiyadda oromada wuxuuna ku hadlaa af oromo reerka la yidhaahdo sheekaasha gaar ahaan reer waqudub qaybo dhan ayaa iyagana afka oromada ku hadla madigaan reerka la yidhaahdo madigaan barkii inta maanta jigjiga iyo nawaaxigeeda degan mooyaane iyo gobollada waqooyiye xooggooda waxay ku hadlaan xaggaasay jiraan reerkii la yihahdo barsare xooggiisa halkaasuu ku jiraa afkaasuuna ku hadlaa reerka loo yaqaana gasar oo ka mid ahaa libaaxyadii ku bahoobay isbaysigii xarla iyaguna qaybo dhan oo ka mid ah halkaasay ku maqan yihiin reerka xarla oo iminka hadda aan ka hadlayo inta maqan ee u badan ee sida jiiraan xarla oo kale waxay ku maqan yihiin xaggaasay ku maqan yihiin reerka la yihahdo dabruube reerka la yihahdo gaadsan reerka loo yaqaano layiile qaldho dir reerka la yihahdo intaasoo reeroodba iyo reerka loo yaqaano waqmaashe oo ah reer xasan oo mareexaan ah beelaha soomaaliyeed oo dhan waxay ku hadlaan afka oromada qaybo wuxuu u yahay afka koowaad afka oromada qaybana wuxuu u yahay afka labaad haddaynu marka beelahaasi soomaaliyeed niraahno af oromay ku hadlaan laakiin oromo waakiin soomaali ma aha waxaa imanayso inaynu meel kaga dhacno magaca iyo martabada ummadda soomaaliyeed ee halkaa degan beelaha aan ka hadlay waa hawiye waa dir waa daarood intaa beeloodba waa dad dhulkaa degan la yaqaano magacooga martabadooda saldanadahooga waxay soo ahaan jireen inaan maanta marka social media dad la soo galaan dadkaasi ma aha soomaali ee waa dad afkaa ku hadlo waxay qayb ka tahay hagardaamooyinka nolosha lagu soo dhex tuuray ee cadowga uu doonayo in laga faa'iidaysto aan ka sii socdo reeraha laysku yidhaahdo qaldho dir laysku yidhaahdo oo ka mid ah shanta inan ee uu dir dhalay waxaa ka mid ah reerka loo yaqaado noole iyo reerkii la yihahdo jaarse iyo reerkii la yihahdo camar iyo reerkii la yihahdo qaaluu oo iyagana afarta qaaluu usii kala baxo waa niman qaldho dir ah waana niman soomaaliyeed laakiin social mediaha waxaan ka aragno iyo dhalinyarta aan taariikhda iyo dadkan iyo hiddahoogii waxay si aan garanayn waxaad arkaysaa iyagoo ku riixayo meelo kale iyo dadyo aysan ahayn inta haddaan kaga yimaado barnaamijkaygan aan ugu magac darnay waayo oodan nabe oo aanu ku ifinayno qaybo ka mid a dadka afka oromada ku hadla iyo soomaalida ku hadasha afka oromada ayaan sii gunaanidaynaa si aynu usoo gunaanino ama aynu uga wabaxno barnaamijka mar walba soo gaabino waxaa dad badan ay codsanayaan in barnaamijyada lasoo gaabiyo intaa kadib waxaan u geli doonaa qodobka aan ka tallaabay
oo ah jaraanjarta dhaqanka qoomiyadda oromo. jaraanjar marka laga hadlayo iyo dhaqan waxaa jira wax loo yaqaano gada system ama nidaamka gado. marka laga hadlayo gada nidaamka loo yaqaano, haddaba si aan u fahanno nidaamkaasi gada, qabaa'ilada Soomaaliyeed ee gada systemka adeegsada ilaa maalinka maanta ah waxaa ka mid ah qabiilka loo yaqaano Gadabursiga. gada system waa maxay ama nidaamka gada waa maxay? nidaamka gada inta aan kan qoomiyadda Oromo u gelin kan Soomaaliga aanu fahanno si aynu u garanno ujeedada iyo buddiga waxa aynu ka hadlayno. gada system waxa weeye waa heerka qofka nooluhu uu maro, wiil iyo gabadhba. marka waxa weeye qofku waa gaban, wuxuu noqonayaa kuray, wuu isu bedelayaa, wuxuu noqonayaa golojoog buu noqonayaa, wuxuu noqonayaa gaashaanqaad, wuxuu noqonayaa guurqaad, wuxuu noqonayaa geed joog, wuxuu noqonayaa garqaad, wuxuu noqonayaa garaad, wuxuu noqonayaa guun, haddana wuxuu noqonayaa gabax. 8 sanaba qofku wuxuu marayaa heer ayuu marayaa. heerkaasi oo maalinta uu inanka yar yahay ee gabanka ah ee uu 7 sano ilaa 8 sano uu gaaro ilaa uu 9 jir ka tagayo, qofku wuxuu marayaa nidaam la yiraahdo nidaamka gada oo ah nidaamaynta da'aha ama facaha sida isu daba xigaan. oo qofku wuxuu ku sii dhawaanayaa mar inuu yahay sida dad soo qaato markuu gaashaanqaad gaaro, waa qof lagu xisaabtamayo oo ciidan u diyaar ah inuu ka qayb galo dagaalada la aloosayo ama dagaalada la doonayo in beelaha lagu soo qaado. guurqaad buu noqonayaa, qofku waa loo dhisayaa. geed joog buu noqonayaa, qofku wuxuu dhageysanayaa garta iyo nidaamka iyo xeerbeegtida iyo sida ay wax u socdaan iyo wixii soo dhacay oo dhan ayuu ka dhargayaa qofkii oo lagu anqarinaya laguna barbaarinaya. dabadeedna wuxuu isu bedelayaa inuu noqdo garaad ayuu isu bedelaya oo garaadkiisa buuxsamo 40 jir buu gaaray. 40 jir buu gaaray, garaadkiisa buuxsamay, kadibna wuxuu noqonayaa qof taladii iyo teeladii reerka ay ka go'do. kadib garaad markuu ka gudbana guun buu isu bedelayaayo guunku waa ninka loogu yimaado wixii dhacay ama utun iyo xasarad iyo irdho ahaa ama barqad iyo baraaro ahaa ama abaaraha iyo amnaca kale ee dagaalada lagu riiqmay iyo maxaa la yidhahdaa xanuunada. ninka laga soo dheegto weeyaan guunka, oo nin guun aho waa loox meel yaallo, dabadeedna waa library socdo weeyaan oo wax walba laga baranayo. guun markuu qofku dhaafo wuxuu isu bedelaa waxa loo yaqaano gabaxda. iyo yar dhig waranka aan soo qabsado goodka. haddaba warankii good baa bedelay. dabadeedna arrintu markay sidaa tahay uu guun noqdo, dabadeedna saasuu isu bedelayaa qofkii. haddaba qoomiyadda Oromo iyadana gada system ama nidaamka gada sida uu isticmaasho aynu iyadana wax ka ogaano. waxaa jira wax la yidhahdaa dabale. gaban markaa annagu nahay, iyagu waa dabale buu ka bilaabmayaa. dabale waxaa ku xigo junior game. halkan inagu yacni golojoog aynu ka oranayno, iyagu waxa weeyaan way soo koobayaan. halkaa 8 sano annagaanu sharaacinayno, iyagu 2 goor ayay isku labalaamayaan. junior game waa 9 ilaa 16 jir. waxaa ku xigo senior game. meeshani sida loo kala af hodansan yahay ayaa erey bixintana loo kala heli og yahay. Soomaaligu waa dad erey bixinta ku fiican sababtoo ah afkooga af hodan ah. senior game markaad ka baxdo kusa ayaad gelaysaa. markaa kusa oo 25 ilaa 32 ah. kusa waxaa asna markaa sii bedelayo raba dure ayaa sii bedelayo ama raba dure oo isaguna markaasi heerkii garaadka jooga. maxaa markaa kaasi uu noqonayaa? wuxuu sii bedelayaa yuba oo koobaad oo ah guunka meesha ka bilaawdayo. iyagu markaa maadaama ay israaciyeen haddana tiro sii dheer ayaa jirto, halka inaga 90 ilaa 100 uu gabaxaynu joogayo. yuba waxaa ku sii xigo yuba oo mar labaad la labeeyey. erey bixin kale looma hayo, laakiin yubagii labaad weeyaan, waa guunkii kii kasii sarreeyey. yuba haddana waxaa kusii xigo yuba saddexaad kale ilaa uu ka gaarayo gadamoji oo ah halka ugu dambayso 100 iyo wixii ka sarreeya. inagu waxaynu nidhi waa gaban iyo gaashaanqaad iyo guurqaad iyo geed joog iyo golo joog iyo garaad iyo guun iyo gabax.
erebixinta aad u quruxda badan. halkaana waa inta haddaan idin sheegayey, waa dabale, waa junior game, waa senior game, waa kusa, waa raba dori, dabadeedna waa yuba, haddana waa yubagi labaad, dabadeedna waa yubagi saddexaad, haddana wuxuu isbedelayaa gadamoji ayuu isbedelaya. marka ugu dambeyso waa odayga ugu dambeeyo. maxay yihiin marka intan markaa yaa isku xukuma? waxyaabaha aynu ku kala duwannahay cajiibka waxa weeyaan arrintan soo socoto. intaas oo aan soo sheegnay, inagu marna waxaa taliyay garaadka iyo ugaaska iyo malaaqa iyo wabarka iyo boqorka iyo islaamka oo ay kasii hooseeyaan caaqiliinta iyo salaadiinta. iyagu markaa waa laisku soo jamcinayaa. boqorka guud ama ugaaska guud ee qoomiyadda oromo waxaa loo yaqaanaa abagada ama abagada, oo ah aabbihii gadaha oo dhan. wax gada sheegta ilaa kuray meeshuu maalintu kasoo bilowda uu yaraa oo 6 jirka ahaa ilaa 90 jir inta u dhexaysa ninka ka mas-uulka waxa la yidhahdaa abagada. in badan dadka Soomaaliya maqlan baa malayna magaca abagada. abagada marka waa ugaaska guud. waxaa jira abajife baa jira, abasare baa jira, abakuse baa jira. kuwa kale waxay kala haystaan xeerbeegtida. marka la kala qaybiyo oo loo kala qaybiyo waaxyo ayay waaxyihii haystaan. waxyaabaha cajaa'ibka ah, dhowrkii waaxoodba qof ugaas gooni ah ayaa u taliya. ugaaskaasi kaalinta kasii sarraysa markii la gaaro ama amuuraha ka culus markii la gaaro 27 kale haddana ugaas kalaa u talinaya. marka abakuse iyo abasifa iyo abajife iyo maxaa la yihahdaa gada intaba way hoos imanayaan. dabadeedna waxaa imanayo sidan haddana aynu halkan haddana sida loo sii kala qaybinayo. kow, haddaynu ogna gada harboore oo reer harboora ah oo la wada yaqaano, iyo gada hawatu oo iyaduna gooni ah, iyo gada konitu. waxaasoo dhan waxay xilal u hayaan. waa counselor la sameeyey, waa xeerbeegti qolo walba uu nin ka amar qaato. innaga waanu lahayn arrimaha noocaasa, laakiin dhaqankaasi iyo xeerkaasi waanu laalnay oo xeerkiisaan cadaalaha markaynu qaadanay iyo dee arrimihii kale nagu soo fiday ee ardul carab nagaga yimid markaasaynu ka baxnay xeerarka noocaasoo waanu lahayn. gaadaas systemkan oo asalkiisina waa kan ummadda Soomaaliyeed ee marka hore isticmaali jirtay iyo sifahan habda aan ka sheekeynino. inta haddaan kasii gudbo aanu eegno hal mar councilka loo yaqaano. halkan aanu eegno gada arboore waxa uu ka kooban yahay 6 nin oo fadhiya oo talinaya. kow, dusha maxaa ka wada haysta marka 2 council iyo 6 marka la sugayo waa 8. 8daasi waxa wada taliya abagada u taliya. qaybta labaad iyaduna waxa weeyaan waa madija oo ah 18 xubnood oo ka ama aan u fasiri karo waa 18 counselor oo fadhiya halkaasi oo golaha jooga oo talada ka go'ayso. qaybta saddexaadna waxa weeyaan waa garba oo iyagana 12 ka kooban oo ah garbihii lagu duulayay. dadka noocaasa marka waxyaabo badan oo dhaqan ah iyo jaarnimo ayaa inaga dhaxeeya. saan hore u sheegay barnaamijkeena aan ku furay dhibaatooyinka qoomiyadaha laga dhaxwado iyo isku dirka. waxba dan inooguma jirto haddaynu nahay Soomaali. waxaynu u baahannahay inaan ka qayb qaadano arrimaha maanta geeska Afrika ka curtay ee isbedelada iyo nolosha siyaasadeed ah, dabadeedna u socda tubta toosan. inta haddaan kaga baxo qaybteedii hore barnaamijka, gunaanadka barnaamijka waxaan u gelayaa qaybta saddexaad oo ah baaq ku wajahan daayarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan qolqoljoog iyo khudba joogba leh. dhalinyarada Soomaaliyeed ee mihigaanka badan ee aqoonta iyo garashada loo tirinayo, waxaynu u baahannahay inaynu ka faa'iidaysano waqtiga taagan aqoonta aynu Ilaahay u siiyay iyo garashada. waa inaynu ka baxnaa riwaayadaha iyo mala'awaalka ay ku soo jabeen aabbayaasheen iyo adeeradan iyo awoowayaasheen ee ah kan waa reer hebel iyo kan waa reer hebel. sababtoo wax lagu jabay oo hore loogu soo qaban waayey oo dadka haadaamo ka wada riday oo wada curyaamiyey oo uurku jirta kala baxday ma aha inaynu daba soconno. waxaa loo baahan yahay cadowgu waa inuu isaga shaqaysto.
ma aha inaan cadowga innaga u shaqayno cadowgu isagaa ha shaqaysto innaga inaan u shaqayno cadowga waa inagu ceeb maxaynu cadowga ugu shaqaynaynaa waxaynu ugu shaqaynaynaa in lagu yiraahdo dadka hadda aan kasoo sheekaynaya ee Soomaaliyeed ee walaaladeen ah ee hawiye iyo dir iyo daaroodba leh ee qoomiyadda oromada la nool oo la jaalka oo meel la degan oo intaasoo qarni la deganaa oo ay ood wadaag yihiin oo bah wadaag yihiin oo guur wadaag yihiin oo dhaqan wadaag yihiin inaynu ku tilmaano niraan dadkaasi Soomaali ma aha sababtoo ah af Soomaali kuma hadlaan dastuurkii 1960 ee jamhuuriyadda qaranka ummadda Soomaaliyeed waxaa ku qoran oo uu qeexayaa ilaa haddana ku qoran qof kasta oo Soomaali ah meeshuu doonaha ku dhasho qofka hadduu Soomaali yahay waa Soomaali qofka hadduu Mombasa ku dhasha hadduu ku dhashay Nairobi hadduu ku dhashay Kampala hadduu ku dhashay meesha loo yaqaan Lusaka hadduu ku dhasho Chicago hadduu ku dhashay hadduu Australia ku dhasho hadduu ku dhasho Gojam iyo Gondar waa Soomaali cid u diidi karta Soomaalinimadana ma jirto dad gooni isu siin kara Soomaalinimadana ma jirto Soomaalinimadu waa dhalasho waa qoomiyadnimadaynu wax ku nahay qoomiyadnimada ayaynu wax ku nahay qof Soomaali qof kale ka saari karana ma jiro boqolaal Soomaali ayaa ku dhalatay qurbaha oo Denmark ku nool oo Holland ku nool oo Germany ku nool oo Mareykan ku nool oo Canada ku nool oo Finland ku nool oo meel walba ma af Soomaali kuma hadlaan haddaanu niraahno dadkaasi Soomaali ma aha waa ayo Soomaalida marka aanu doonayno Soomaalida aanu doonayno waa ayo dad gooni ah oo Soomaali isa siin kara in iyaga yihiin ma jirto kamana yeelayno dad Soomaaliyeed oo la yaqaano oo magac iyo martabad leh in la yiraahdo Soomaali ma aha inta haddaan kaga gudbo cadowga marka waxaan adkaynayaa cadowga ha shaqaysto ma aha in anagu u shaqayno waxa kale oo doonaya inaan adkeeyo nidaamkii jigjiga ka jiray ee uu hogaaminayay Cabdi Maxamed Cumar wuxuu ahaa nidaam bulshada Soomaaliyeed kala fogeeyay waxa maanta taaganna nidaamka dhalay ee sababay in Soomaali qaybna tirado naga Soomaali ah qaybna la yiraahdo Soomaali ma tihiin nidaamkaas keenay sababtoo ah waxaan hadda kula kulmay magaalo loo yaqaan Filtu oo caasimadda gobolka Liibaan ah oday Soomaaliyeed oo ah beesha dagoodiye reerka loo yaqaan Jibraa'ilka waxaan ku yiri magaalada maxaa ku dhacay magaaladaas aad dib u dhac weyn baa magaalada ka muuqday wuxuu yiri adeer xarunta ummadda Soomaaliyeed ee deegaankaasi laga maamulo waa Jigjiga dhowr kun oo kiiloomitir bay noo jirtaa wuu yiri wax adduun ah iyo tabar ah iyo arrin ana kama hayno anoo arrinta odayga la yaaban ayaa waxaan haddana tagay magaalo la yiraahdo Kolla oo magaalada Doola u dhow waxaan kula kulmay oday Soomaaliyeed oo ka tirsan beesha Gariire la yiraahdo oo markaas ka mid ahaa salaadiinta beesha Gariire markii la ii sheegay waraysi baan ugu dhaqaaqay waxaan ku yiraahday waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo nolosha iyo waayaha beesha Gariire wuxuu ii sheegay beeshu inay iska nabdoon tahay dhaqaale badan iyo dhul beereed hodan aan leedahay laakiin nidaamkii iyo maamulkeedii uu ka mid noqday gobolka loo yaqaano gobolka afraad ee Oromia qayb dhanna ay ku biireenba dadka la yiraahdo Sidama oo iyagana mar kale aan ka sheekeyn doono wuxuu igu yiri odaygaasi waxaan la geliliyoonayaa buu yiri Soomaali baan ahay oo ku dhaataa buu igu yiri waxaan la geliliyoonayaa oo dhibaatada aan ka hadli kari laahay kumanaan sano meeshii aan deganayn in maanta uu dhalan ragon ku dhaco sababtoo ana waa siyaasad xumada ka jirto yiri Jigjiga marka nidaamkaasi wax 10 sano ka jiray magaalada Jigjiga wuxuu isku dilay dadka Soomaaliyeed 10 sano ka hor intuu Cabdi Maxamed Cumar meesha iman waxay ahaayeen dad dhal iyo dhasheed ah oo wax wada cuna oo isleh oo beeraha guula oo wax isa siiyay ahaayeen maanta waad arkaysaan waxa la isku dilayaa waa beelihii walaalaha isdhala ee William Abtigi ahaa tusaale ahaan haddaan Jaarse iyo beesha Gari u soo qaato waa dad Soomaaliyeed oo isdhalay oo isdhinac yaalay oo walaalo ah dagaal baa laga dhaxwaday dagaalkaasina waxaa waday qoomiyadda loo yaqaano Tigre oo ku cimri dheeraysanaysay diihaalka iyo dhibaatada bulshada Soomaaliyeed iyo Oromada la doonayay in laga dhaxalooso waayo dagaalka Soomaalida Oromadu wuxuu naaxinayay oo cimri dheer u sameynayay qoomiyadahaasi doonayay in dib u sii haystaan qayrkood ee Ethiopia qaybna ay ku soo noqdaan oo ahmaarada nidaamkaasi waa nidaamka baday 412 qabale oo qabalaygu uu ka kooban yahay 400 oo qoys inay kilinka Oromada ku biiraan cadaalad darro qabyaalad nacaybsho
faquuq ay kala kulmeen nidaamka jigjiga ka jiray oo cabdi maxamed cumar hogaaminayay. dadkaasi Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ayay ka tabanayeen nidaamka halkaa ka jiray ee haddana la lahaa waxaad isku tihiin Soomaali oo caasimadiina waa magaalada jigjiga. xaaladda maanta taaganna waxaa dhalay waa qoladaasi oo isku daaban afkiisana uu ka cadeeyay cabdi maxamed cumar in ay Tigreega arrimahan oo dhan iyaga ay ka dambeeyeen afkiisuna ka sheegay. inta haddaan kaga gudbo deegaanada jigjiga afartii bishan aan ku jirno kadib Diradhaba haddana magaalada Jabuuti magaalada Boosaaso intaba waxaa ka dhacay gabadfallo iyo dilal ay qaar Soomaali iyo Oromo loo geystay. waxaad ogaataan dilka iyo gabadfalka iyo dhaca iyo boobku xal ma noqdo. xalku waxa weeyaan waa nabadda iyo wada noolaanshaha geeska Afrika iyo inaan dib u haabano sayidnimadii aan geeska Afrika iyo awoodii aan ku lahayn haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay haabtaan oo ay kor u kacaan oo ay ka fakiraan inay geeska Afrika iyaga maamulaan. maxaa diiday haddii Axmaara ay soo talinaysay oo Tigree ay kalkeedu soo cuntay ay maanta Oromo qabsatay inay dowladda Itoobiya maamusho maxaa inoo diiday inaan annaga u diyaar garowno inaanu noqono prime ministerka soo socda ee qaranka Itoobiya maamula. maxaa inoo diiday Uhuru Kenyatta markuu baneeyay Kenya qolada ku xigta ee madaxweynaha dalka Kenya soo sharaxayso inay noqdaan dhalinyarada waxbarata ee Kenya ku nool Soomaaliyeed maxaa diiday. waxaynu u baahannahay aragtida foorarta iyo qalbiyada daxalaystay fakarka ka soo maaxanaya inaynu dhinac iska dhigno. geeska Afrika innaga iska leh qowmiyadaha geeska Afrika yaalla wax badan baanu wadaagnaa innagaana looga baahan yahay inaan iyaga hogaamino. ma ahan innaga in maalin walba nalagu soo dhex tuuro beel heblaaya sidaan ah beel heblaaya ka noqotay waxa waa wax lagu soo jabay. bulshada Soomaaliyeed waxaa dhaqan u ahaa anoo gabagabadii barnaamij ku sii siqayo waxa loo yaqaano baaho iyo biiro. baahadu waxa weeyaan waa arrinka waa ama xoolaad dadka baaha aad ku caawisaa ama adduun baad ku caawisaa ama dalaga xoolaha kuu soo go-aad ku caawisaa. biiraduse waa maxay? biiradu waxa weeye beelaha Soomaaliyeed markii la dagaalami jiray ee cadowga lala dagaalami jiray beelaha yaraada ee riiqma ee dagaalka ku baaba'a waa la biirin jiray. taariikhdaynu ku haynaa mar dhan baynu ka sheekaynaynaa qaababka ay beelaha isu biiriyeen. beelaha isbiirinayo waa dhammaan dagaalka Soomaaliyeed dadka yaalla ee Dir iyo Daarood iyo Hawiye iyo Raxanweyn iyo beesha shanaad intaba way isbiiriyeen. beel waliba ama qowmiyad waliba Soomaaliyeed marka ay shiiqdo oo yaraato oo dagaalka ku baabado waa la biirinayay. waxaa la is oran jiray war tolkayow ma baahaad noogu timaadeen mise biiraad noogu timaadeen. ilaa maalinka maanta waa la isticmaalaa baaho iyo biiro. qabiil kasta oo Soomaaliyeed Daarood inuu Dir biiriyo Dir inuu Hawiye biiriyo Raxanweyn inuu Daarood biiriyo beesha shanaad saasaa la ahaan jiray. dadkuna waxay lahaayeen hal cadow oo hal muunad leh oo hal meel ka soo jeedo. 100 cadow ma jirin. erey bixinta Soomaaligana laguma hayo inaad qof Soomaaliya ku tiraahdo waa cadow. erey bixinta Soomaaliga qalad ayay ku noqonaysaa. marka baahada iyo biiradaasi ayay bulshada Soomaaliyeed ku soo wada noolaayeen qarniyo iyo qarniyo. dadka jaarka ana ay isaga dhicinayeen. maantana loo baahan inay sidii isu biiriyaan oo caqliga iyo garashada ay iska biirsadaan oo ay iska biiriyaan oo ay baaha isa siiyaan oo ay xumaanta iska reebaan oo ninkooga qaldan ay iska qabtaan. intaa kadib gabagabadii barnaamijkeennan waa iyo oodan nabe gaalo Oromo xubinteena maanta aanu ugu talagalnay inaynu bulshada usoo habno waxaan ku soo gunaanadayaa arartan ugu dambeysa. sheegashada dhulka Soomaaliyeed dhulka Soomaali galbeed ama Ogaadeniya ninba sidoo u yaqaano dagaalkaasi qabaa'ilada Soomaalida oo dhan ayaa degan intii aan ka soo hadlay iyo in kalaba 240 qabiil ayaa lagu tilmaamay inay degan yihiin. 240 qabiil nin walba mooro ama meel bara u gooni ah ayuu leeyahay uu degan yahay. dadku waxna way wada leeyihiin waxna way kala leeyihiin. qabaa'iladaasi Soomaaliyeed nin laga sheegan karayo dhulkaasi ma jirto. nin waliba dhulkaasi wuu u soo halgamay wuu u soo dagaalamay dib buu u soo maray diihaal badan buu u soo maray walaalkiisu ku soo caawinayay. nin laga sheegan karo la oran karayo magaala Hiblaayo innaga iska leh ee reer hebel waxa kuma ahan ma jirto. waa inaan taa fahno. qof waliba oo noola ah dunidan guudkeeda 2 mitir buu ku leeyahay. 2 mitir baad sheegan kartaa wax 2 mitir ka baxsan ma sheegan karaysid.
labada mitir lagugu aasaya ee godkaaga ah unbaad dunida ku leedahay. intaa wixii ka baxsan waa qalad waxaad dadka ku xagxagato. barnaamijkeennii guuldarrooyinka taariikheed qaybtii labaad intaa ayaanu kusoo afmeelaynaa. waxaan idinkaga tegayaa mar kale anoo baaq u jeedinaya dhallinyarada soomaaliyeed ee social mediaha ku mashquulsan arrimaha aanan waxba u tarayn ee aflagaadada iyo cayda qowmiyadaha kale ama aflagaadada iyo cayda annaga qowmiyaddeena soomaaliya loo soo jiidayo inay ka waantoobaan. wax badan oo laga hadlo oo waqtiga lagu lumiyo oo wanaagsan ayaa jira. wax badan oo manfac iyo dhadhan iyo macaan leh ayaa jira. wax badan oo keenaya isku walaalnimadeenna iyo ummadnimadeenna iyo qowmiyadnimadeenna adkaynayaa jira. waa in kuwa lagu mashquulo. waa inaynu joojinaa arrimahaasi keenaya cadowtinimada, isriixa, isnacaybka qowmiyadaha nala jaalka ah. qowmiyadahaasi geeska afrika ku nool qaar baan dhaqan wadaagnaa saan u sheegay, qaar baan diin wadaagnaa, qaar baan gur wadaagnahay. waa in markaa aynu ixtiraamno dadyagoo kale si innagana aanu ixtiraam u helno. dadka inoo martida ah soomaalidu waxay leedahay marti bay leedahay oo magan bay leedahay oo martisoor bay leedahay. marka qofka kuu martida ah waa ceeb in dhexdaada wax lagu yeelo ama la caayo. waa ceeb iyo dhaqanka soomaalida ku ahayd. ninka martida leh haddana waa inuu magan leeyahay. haddaad marti leedaho lagu soo martiyo waa inaad magan leedaho oo magan gelin karayso qofka. dhaqanka soomaaliguna waa sida saxda ah. marka waa inaynu ka baxno arrimaha aanan waxba inoo tarayn ee dadyoga kale dhibaatada inoo keenayo. waa inaynu hiigsanaa heegada. waa inaynu hiigsanaa inaynu geeska afrika innaga maamulno. ahmaar iyo tigre waxay wacad ku mareen in labada qowmiyadood ay weligood isa surnaadaan oo laga faa'iidaysto horumarko iyaga ay cunaan macaanka, innagana mar waliba naloo soo tuuro waxyaabo aanan loo baahnayn. marka la damdo iyaga shaqadooda ha qabsadaan, innaga yaynan u shaqaynin. intaasaan idinkaga tegayaa maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.